السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناسان daawadayaal akhyaarta hawada naga daawanaysa ay ku soo dhawaada warka telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV oo idinka yimaada stuudiyihiisa magaalada Hargeysa warkana waxa caawa diyaar u anigoo Saleebaan Ibrahim Xaashiya qodobada ugu waaweyn ee daawadayaal aan warka caawa idinku haynana waxa kamid ah maanta Arbaca oo bisha June ay tahay 26 waxa ay ku beegan tahay sanad guuradii 53aad ee ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay xorriyadeeda ka heshay boqortooyadii ama guumeystihii dalka Ingiriiska iyadoo aan maanta guud ahaanba laga dareemeyn xuska maalintan guud ahaanba Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyana waxa uu maanta magacaabay wasiir dawlad cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland oo aan hore u lahayn wasiir dawlad iyo wasiir ku xigeen toona xisbiga wadani iyo ururkii xaqsoor ayaa waxa ay ka hadleen mas'uuliyiin ka tirsan oo xisbigaas iyo ururkaas oo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu ku daray xukuumaddiisa daawadayaal intaasi waa warkii oo kooban imikii haatan u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan waxa maanta oo ay bishu tahay 26 June sanadka 2013 ay ku beegan tahay sanad guuradii 53aad ee ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland ay boqortooyadii wadanka Ingiriiska ay xorriyadeedii ka heshay kadib markii ay Soomaaliland guumeysanaysay muddo ku siman 86 sanadood kadib halgan dheer oo shacabka Soomaaliland heeryadaasi iskaga tuureen maanta oo Arbaca oo ay ku beegnayd sanad guuradani waxaan guud ahaanba Soomaaliland laga dareemin xuska maalintan iyadoo maalintan ay ka mid tahay maalmaha taariikhiga ah ee ku suntan taariikhda Soomaaliland inkastoo ay Soomaaliland markii ay xornimadaasi heshay ka qaaratay guumeystihii Ingiriiska 4 maalmood kadib ay si salfudeyd ah xorriyadaasi u geysay dhinaca dalka Soomaaliya iyadoo ay doonaysay in la sameeyo shanta Soomaaliyeed oo loo mideeyo maanta oo kale 53 sanadood ka hor waxa ay ku beegantahay maalintii ay Soomaaliland xorriyadeeda ka qaadatay boqortooyada dalka Ingiriiska 26 June 1960 waxa ay shacabka Soomaaliland ku waabariisteen iyadoo ay calankii u horeeyay ee dhul Soomaaliyeed laga taago magaalada Hargeysa gaar ahaan beerta xorriyadda iyadoo boqolaal dadweyne ah oo farxad ay wajiyadooda ka muuqata ay u dabaaldegeen halgan dheer kadib markii ay maxmiyada Ingiriiska ay ka qaateen xorriyadooda taas oo iyadu muddo ku siman 86 sano guumeysanaysay dhulka Soomaaliland halgan dheer kadib oo shacabkii ku dhaqnaa Soomaaliland waqtigaasi ay la galeen guumeystihii wadanka Ingiriiska oo isagu guumeysan jiray Soomaaliland ayaa waxa ay farxad iyo reereyn u ahayd boqolaal dadweyne ah oo ku dhaqnaa Soomaaliland maanta oo kale 53 sano ka hor kuwaas oo iyaga wajiyadooda ay ka muuqatay farxad aad u weyn Soomaaliland oo 53 sano ka hor maanta oo kale 1960 xorriyadeeda 26 June ka qaadatay boqortooyadii Ingiriiska waxa ay muddo 4 maalmood ah kadib si salfadeednimo ka muuqato ay xorriyadii iyo calankii u geeyeen dhinaca Muqdisho oo iyadu waqtigaasi uu guumeysan jiray dalka Talyaaniga iyadoo oo mas'uuliyiintii waqtigaasi ee Soomaaliland xorriyada u saxeexay markii ay Ingiriiska ka qaadanaysay iyadoo ay hayso jibbo ama caadifo Soomaaliyeed ay si degdeg ah iyagoo doonaya shanta Soomaaliyeed in la mideeyo ay magaalada Muqdisho 1 July ay kula midoobeen ama ku dhawaaqeen in ay mideynayaan ama dhulkii Soomaalidu degi jirtay ee shanta Soomaaliyeed ee ay kamid ahayd Soomaalida Talyaaniga guumeysan jiray Soomaalida Faransiiska ee loo yaqaan waqtigan Djibouti NFD oo ka tirsan dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya
iyo tii kale loo yaqaanay reserve area ee dalka Kenya. waxaa shacabkii Somaliland 4 maalmood kadib si rasmi ah iyagoo doonaya in ay seeska u dhigaan wixii waqtigaasi loo yaqaanay Soomaali weyn ay 1 July la kulmeen ama xorriyadoodii geeyeen wadanka Soomaaliya oo waqtigaasi iyaguna xorriyadooda ka qaatay guuleystihii wadanka Talyaaniga. xorriyadaasi oo aad lagu tilmaamo mid aan la mahadin waxa ay kala kulmeen shacabka Somaliland markii ay 1 July la midoobeen dalkii Soomaaliya ee la isku sameeyay wixii la isku oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya ay horseeday in markii dadkii kale ee Soomaalida ahaa ay arkeen in aanay labadii Soomaali ee Somaliland iyo Soomaalidii Talyaaniga gumaysan jiray ay xurguf ama cadaalad darro dhexdooda si weyn uga dhacday in ay ka joogsadaan taas oo keentay in shacabkii Somaliland iyo madaxdii Somaliland ee waqtigaasi doonayay in Soomaali weyn la sameeyo dawladii u horeysay ee laga sameeyo magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ee iyadoo waqtigaasi ahay xaruntii Soomaalidii u gumaysan jiray Talyaaniga. dawladii u horeysay ee la sameeyay ay markiiba soo ifbaxday in cadaalad darro weyn ka muuqato kadib markii madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihiiba loo magacaabay niman ka soo jeeda koonfurta dalka Soomaaliya ama Soomaalidii u gumaysan jiray Talyaanigu. iyo kadib waxaa shacabka Somaliland ay qoys ka istaageen midnimadii ay doonayeen ama shantii Soomaaliyeed ay doonayeen in la isu keeno. waxay muddo dheer kadib ay halgan dheer oo ay galeen ay ku dagaalameen markaana kumanaan qof ay ku dhinteen sidii ay xorriyadoodii 26 Juun ay sida fudud u lumiyeen in ay dib ugu soo hantaan iyadoo dagaalo culus iyo waliba ay nafa badan ku dhinteen kadib ay Somaliland xorriyadeedii dib u soo ceshatay kadib markii in ka badan 10 sano ay dagaal kula jirtay kaligitaliyihii wadanka Soomaaliya xukumayay Maxamed Siyaad Barre 1991kii ay Jamhuuriyadda Somaliland ay dib u soo ceshatay xorriyadeedii luntay 1960kii. badii caadifadii waxa ay ku burburtay isu tagii 1 July ee ay isu tageen Somaliland tii u gumaysan jiray Ingiriisku iyo Soomaaliyadii u gumaysan jiray Talyaanigu. balse lama mahadin waqtigaasi midowgaasi waxaase himiladaasi ay si dhab ah u dhimatay 17 sano kadib markii Djibouti ay xorriyadeedii gacanta ku dhigtay ee ay ka qaadatay Faransiiska ay diiday inay la midowdo labadii dal ee hore u midoobay ee Somaliland iyo Soomaaliya taasoo iyadu god ku sii riday himiladii ama hamigii laga qabay in la mideeyo shantii Soomaaliyeed. la midowgii Soomaaliya ee degdeg ah ee Somaliland la midowday waxa ay Somaliland ka dhaxashay dhibaatooyin isbiirsaday oo isugu jiray dhinaca siyaasadda, dhaqanka iyo waliba dhaqaalaha. waxaa dawladii u horeysay ee markii la midoobay la dhisay waxa ay u muuqatay ama ay sawir dhab ka bixisay dhibaatooyinkii ka taagnaa ama sida cadaalad darrada ah ee reer koonfureedkii ay Somaliland la midowday ay u duusiyeen xuquuqdii Somaliland. waxaana madaxweyne dawladii u horeeyay ee midowga madaxweyne u noqday Aadan Cabdulla Cismaan oo ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya halka uu ra'iisul wasaare ka noqday Cabdirashiid Cali Sharmaake oo isaguna ka soo jeeday waqtigaasi Allah u naxariistee gobolada koonfurta Soomaaliya. iyadoo Somaliland aanay waqtigaasi masabadii u sirsireeyay dawladii u horeysay ee midowga ahayd aanay ka dhex muuqanin. Somaliland muxubadii ay u qabtay ama jibadii ay u qabtay Soomaali weyn waxa ay ku hungowday markii ay aragtay inaanay ka muuqan mansabyadii u sareeyay ee dawladii la dhisay gumaysiga kadib ama midowgaasi. iyadoo saraakiil ka tirsanaa Somaliland oo iyagu doonayay iyadoo saraakiil ka tirsanaa Somaliland markii ay arkeen cadaalad darradaasi ay isku dayeen in ay xorriyadooda dib uga soo noqdaan iyagoo sameeyay inqilaab fashilmay waqtigaasi. waxa ay shacabka Somaliland mar labaad ay isku dayeen in ay xorriyadoodii 1960kii sida fudud ama salfudeedka ah ay Soomaaliya u geeyeen inay dib u soo dhacsadaan iyagoo bilaabay halgan dheer oo ka adag kii ay gumaystihii Ingiriiska ee muddada 86 sano gumaysanayay mid ka adag galay kaas oo sababay in burbur iyo isugu jira mid dhaqaale iyo waliba mid nafeed oo baaxad leh oo xanuun badani uu soo gaaray sidii ay dib uga soo noqon lahaayeen xorriyadii ay lumiyeen 1960kii. sano kadib waxa xorriyadii ay Somaliland Ingiriiska ka qaadatay mar kale u galeen dagaal culus oo socday muddo 10 sano ku dhow iyadoo ay ku dhinteen dagaalkaasi kumanaan qof oo reer Somaliland ah halka ay boqolaal kalena ay ku barakaceen. hanti badan ayaa dagaalkaasi ku burburtay. Somaliland oo imika muddo ku dhow 23 sano haysta madax banaani waxa aan si weyn looga xusin 26 Juun oo ay u aqoonsan tahay maalin murugo maadaama ay xorriyadoodii lumiyeen. sanadadii u dambeeyay ayaa waxa ay Somaliland aan si weyn looga xusin maalinta 26 Juun iyadoo
maanta oo ay ku beegan tahay maalinta 26 Juun ee ka soo wareegtay sano guuradii markii ay Soomaaliland xorriyadeeda qaadatay aan si weyn looga dareemin in Soomaaliland laga xuso maalintaasi inkasta oo habeenkaas oo kale xarunta madaxtooyada Soomaaliland lagu xuso munaasabad kooban shacabka Soomaaliland iyo dawladihii kala dambeeyay Soomaaliland soo maray ayaa waxa ay weynayeen ama ay si weyn u xusaan dadweyne aad u tiro badan isugu soo baxaan gudaha iyo dibadda 18 May oo ku beegan maalinta qaranimada Soomaaliland ama maalinta la soo noqoshada xorriyadii ay Soomaaliland lumisay xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo urur siyaasadeedkii Xaqsoor ayaa waxa ay ka hadleen mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi iyo waliba ururka Xaqsoor oo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ku soo daray golihiisa wasiirada kadib markii uu isku shaandhayn ballaaran ku sameeyay ururka wadani oo maanta gudoomiye ku xigeenkeeda koowaasho jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in ay eegi doonaan ama ay tala ka yeelan doonaan Ali Maxamed Waran Cade oo kamid ahaa mas'uuliyiinta sare ee ururkaasi ama xisbigaasi oo madaxweyne Siilaanyo u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha sidoo kalena gudoomiyaha ururka Xaqsoor Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo laba kamid ah ku xigeenadiisii loo magacaabay golaha wasiirada ee madaxweyne Siilaanyo ayaa isaguna sheegay in aanay xukuumaddu kala tashan hoggaanka sare ee ururkaasi magacaabista xubnahaasi madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa uu maanta uu magacaabay wasiir dawlad cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland warbixinta warkaasna waxa inoo hayo wariyahayaga Siciid Khadar Cabdilaahi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa magacaabay wasiir dawlad cusub oo loo sameyn doono wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada oo uu ku saxeexnaa afayeenka madaxtooyada Axmed Saleebaan Duxul ayaa madaxweynaha Siilaanyo markuu arkay qodobka 9aad faqradiisa labaad ee dastuurka Soomaaliland markuu tixgeliyay ahmiyadda ay wasaaraduhu u leeyihiin dalka iyo dhismaha qaranka markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta jagada wasiir dawlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland markuu ka fiirsaday kartidiisa aqoontiisa iyo hufnaantiisa shaqo markuu ku qancay inuu hanan karo xilka loo magacaabay wuxuu madaxweynuhu go'aansaday in mudane Cabdiraxmaan Jaamac Cabdille laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir dawlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland dawadayaal wararka dhinaca gobolada aan idinka haynana waxa kamid ah dawladda hoose ee magaalada Burco ayaa maanta howlgal aad u ballaaran waxa ay ka fulisay bartamaha magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco kaas oo lagu baneeyay jidadka dhexmara magaaladaasi wariyahayaga magaalada Burco ayaan Cabdiqaadir Xuseen ayaa warkaasi ka soo dirtay magaalada Burco dawladda hoose ee magaalada Burco ayaa maalintii labaad wadoola ay ku baneynayso wadooyinka iyo xaafadaha ay xidheen dhagxaantii waxyaabaha kale ololahan ee goobjoog ka ah mas'uuliyiin ka socda golaha deegaanka uu kamid ahaa maayir ku xigeenka degmada Burco libaano ka tirsan golaha deegaanka iyagoo dhamaantood bulshada u soo jeediyeen inay kala qayb qaataan horumarinta bilicda magaalada iyo baneynta wadooyinka iyagoo arintaasi ka hadlay waxa ay yiraahdeen sida tan maalinta labaad ee howlgalkii aan lagu baneynay wadooyinka dhagax yaalo aad baan ugu faraxsanahay sida waane dadweynaha reer Burco ay arrinta uga shaqeynayaan uga howlgaleen waa maalintii labaad howlgalku uu soconaya maalin xaafad baa la gelayaa waxaan leenahay dhagaxa cidda aan la soo gaadhin ha geyso meesha ku munaasibka ah ama geedkooda gudaha ku xareystaan dhagaxa loogu yimaado wadada waxa loo qaadanaya in laga maarmay waxaan bixilahay baariyo dadka socodka oo shaqeynaya anagu waxaan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno bilicda magaalada oo aan ku ballan qaadnay hadda maaxil libaanada deegaanka ee aan usdeena ka meel dhaliya ballanqaadka aan sheegtay waxaan leenahay maashida u sheegaynaa dadka aan wali hawsha aan ogaanin inay ka digtoonaadaan oo dhagaxooda gurtaan oo ay ku xiraystaan meel munaasibka ama dhismayaasha ay ku wadaan laakiin wixii aan meelka yaalla sida uu maayo ku dhawaajiyay waxaan naga go'an inaan qaadano oo anagu cid ilaahay aan ku raaskeeno urisay aan ku يا ودي أنا سلامية وينا حبيبه هذه سلامية صاحب وشوف ونفسه أنا واحد مع ما رعي وحنا عمان وليه اللوات وضبنا إنت وبشر يوصل إلى بعضنا بسوي تاي ما يرتين حدوانا ذو أيده مقرن ونقبل أبين ودي كواد ما أنت أنا كل بعض بلوني وحنا الأول شيء إن بنينا نوقف بلوني
wadooyinkii degnaa dhagaxa ooda iyo xirada riyaha taasi waxay ku tusaysaa in howlgalkii ay dowladda hoose ku ballan qaaday iyo koosalkiinu ay bilaabantay waxa aanu si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horreysay ee dowladda hoose qabato olole ay ku banaynayaan wadooyinka magaalada iyadoo ay soo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Burco ayaan Cabdiqaadir Xuseen Bulsha TV Burco mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Awdal ayaa waxa ay ka hadleen ciyaarihii gobolada ee Soomaaliland ee dhawaan ku soo gabagabay magaalada caasimadda ah ee Hargeysa iyagoo si weyn u bogaadiyay ciyaaryahanada gobolka Awdal u metelay ciyaarahaasi warbixinta warkaasi waxa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Xasan Ismaaciil mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Awdal uu hogaaminayo isuduwa wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Awdal una weheliyo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boorama ayaa waxay maanta si mugle u hambaliyeen xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal oo ku guuleystay kooxda ugu akhlaaqada iyo ciyaar wanaaga ugu fiicneed intii uu socday koobkii gobolada Soomaaliland iyadoo munaasabadan ay goobjoog ay ka ahaayeen mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Awdal maayirka magaalada Boorama qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama tababare ku-xigeenka xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal iyo ciyaartooydii iyagu matalayay xulka gobolka Awdal waxa halkaas ugu horeyntii ka hadlay Tawakkal عبد علي oo kamid ahaa ciyaartooydii u safanayay xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal isla markaana ku hadlayay magaca ciyaartooyda xulka gobolka Awdal ayaa waxa uu si mugle ugu mahad celiyay cid walba oo xulka gobolka Awdal ka istaagtay haato dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca taageeradaba tababare ku-xigeenka xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal Sakariya Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka dhawaajiyay isma oranaya amagu tababara ahaa waxaan nahay dad aad u wanaagsan waxa magaalada boqolkiiba 99 beel heeraya wax naga sii wanaagsan oo naga akhlaaqiyad wanaagsan laakiin sabadii ilaahay la garansiiyay inaan museeska idin aasaasno waliba ciyaartooyga labada gobol ee Saraar iyo Awdal isuduwa wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Awdal Cabdiwahaab Yuusuf Ibrahim oo isagu halkaasi hadallo dhinacyo badan taabanaya u soo jeediyay xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal ayaa waxa uu ballan qaaday inay sameyn doonaan wasaaradda uu isagu mas'uulka ka yahay kooxo matala afarta xaafadood ee ka kooban tahay magaalada Boorama waxaynu soo qaranay inaynu qaado koobkii akhlaaqda iyo ciyaar wanaaga haasoo ah sumcad weyn oo aynu ku yeelnay ummadda Soomaaliland waxaan ku jirnaa taladiina sidii aad u noqon lahaydeen rabid noqon lahaydeen naadiyada ka dhisan Hargeysa aad dukar u heleeyeen waxa ay helaan taasi waa qorshaha ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay duqa magaalada Boorama Mudane Saleebaan Xasan Xadi oo isagu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal ee iyagu iska xil saaray sidii ay u soo bandhigi lahaayeen ciyaar wanaag ay u riyaqaan cid walba oo taageerta xulka gobolka Awdal heerka ay dhalinyarada reer Boorama taagan yihiin isboortiga Boorama dad wax badan ay ka malaysanayeen fikir kale laga qabaro laakiin waad beerisantaa waxa maanta idin qiraya inaad tihiin dhalinyarada ugu akhlaaqad wanaagsan taana ku guulaysateen la idin qirayo meel walba aniga uma meel walba la qiraya ciyaartii aad muujiseen oo aan goobjoog u ahaa maalin walba marka la yidhaha berri gobolkiiba degmadii Boorama ama gobolkii Awdal baa ciyaaraya shaqada la sii qadimi jiray sidii wixii ka dambeeyay soo bixi maana ciyaaraysan oo ka maqnaa ma jirin taas waxay muujinaysaa sida iga go'aanayd inaan la garab istaago si kastaba ahaatee wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Awdal ayaa ah wasaaradda kaliya ee dhalinyarada gobolka Awdal si muglahay u taageeraan isla markaana koobo kala duwan u qabata ciyaartooyada iyo kooxaha kala duwan ee ka dhisan gobolka Awdal balse waxaa xusid mudan in dhawaan la soo gabagabeynayo garoonkii weynaa ee kubadda cagta ee magaalada Boorama isla markaana garoonkaasi wax badan ka bedeli doono dhalinyarada ku dhaqan gobolka Awdal iyagoo dhalinyarada gobolka Awdal muddooyinkii u dambeysay ahaayeen kuwa la deris noqday dhinaca taariibka isla markaana walaac weyn ay ka muujiyeen waalidiinta iyagu badkooga ay taariibeen Maxamed Xasan Ismaaciil Sherbiyare Bulsha TV magaalada Boorama dadweynaha ku dhaqan magaalada Burcana waxay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen isku shaandhayntii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan uu ku sameeyay golihiisa wasiirada
sida warbixinta warkaasi magaalada Burco uu kaga soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warama dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco dareenkooda ka muujiyay isku shaandhaynta magacaabista iyo xilka qaadista madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ku sameeyay golihiisa wasiirada iyagoo soo dhaweeyay tallaabada madaxweynaha kuna tilmaamay mid dan u ah shacabka Soomaaliland iyagoo dareenkooda muujinayana waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan u arkaa isku shaandhaynta uu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo mid aad iyo aad u muhiim ah oo xaq ah oo ku habboon fikrihii sharciga ee siyaasadda waddanka isagoo u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha nin aad iyo aad u macquul ah oo siyaasi ah oo hoggaamiya raga kale uu magacaabay iyaguna waa rag aad iyo aad u mas'uuliyiin oo muhiim ah waana meerto gaariguba dee marka marshada uu bariga ku socdo waa laga bedelaa mid cusub la geliyaa marka waxay ka duwan tahay dawladda isbiil cusub la geliyay si ay hore ugu sii socon lahayd ama dardar cusub loo gelin lahaa wasaarada badanna uu kala bedelay qaar cusubna uu soo kordhiyay taasina waxay noqonaysaa sidii dawladda ay hore ugu sii socon lahayd ama loo dardar gelin lahaa bay la muuqataa kulay aniga rayga madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo ismay booliska sirada aad baan soo dhaweynaya waayo wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda labadaba aad baan soo dhaweynaya xayla amniga waddanka gudaha ayaa khalkhal galay badan oo kamid ah doorashooyinka kala waana wasaaradda arrimaha gudaha xayla badan wax ka qabay sida daraadii waan soo dhaweynaya in loo magacaabo nin rog cadaaya oo amnigana wax ka garanaya wasaaradana xananka wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasadda Soomaaliland ay ku xidhan tahay sida waan soo dhaweynaya maxaa yeelay idin lafteedu waxay u maantay rog cadaaya islaan kale waxa loo magacaabay nin magac weyn leh oo barnaamij aad iyo aad soo dhaweynaya loo magacaabay muddo dheer soo shaqeynayaan saadiraadii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya talaabada geesnimada qaaday kullu aad iyo aad ugu hambalyeynaya caalam warxado sababna in khubaro muddo dheer siyaasadda Soomaaliland oo takasna ugu dambeeyay ku soo jiray sababna wax baan soo kordhin kullu aad soo dhaweynaa warfaafinta wuxuu ku soo dhibay saddex wasaarad oo muhiim ninkan kale aan go'aan u maleeyo inuu aan ka sheegano waa nin in badan soo shaqeeyay xil badan ka soo qabtay Soomaaliland shaqooyinkiisii horena dhaliil ma ilahayn waxaan qabaa in ninkaas wax badan ka tareeyo wasaaradda arrimaha gudaha oo wasaaradda ugu weyn dalka Soomaaliland inuu wax badan ninkaas ka qaban karayo waan u arkaa si kastaba ahaatee markii u horeysay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu sameeyo isku shaandhayn noocan oo kale ah tan iyo intii uu taladayay waa Sakariya Sheekh Maxamed Bulsho TV magaalada Burco wararka dhinaca dalka Soomaaliya daawadayaal aan idin hayna waxa kamid ah Xasan Daahir Aweys oo kamid ah saraakiisha sare ee kooxda Al-Shabaab ayaa isu soo dhiibay maamulka Ximiniye Xeeb ee ka dhisan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya Xasan Daahir Aweys oo si dhuumasho uga soo baxay magaalada Baraawe ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu soo gaaray isla markaana uu doon ka soo raacay magaalada Baraawe isagoo si dhuumasho ku soo galay gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya Xasan Daahir Aweys ayaa waxa uu ka soo firxaday kadib markii uu ka badbaaday dil lagu la beegsanayay magaalada Baraawe kadib markii maleeshiyad kooxda Al-Shabaab ka tirsan oo kala taageersan laba garab oo ka tirsan kooxdaasi ay ku dagaalameen magaalada Baraawe wariyahayaga Sakariya Sudeysi ayaa warbixinta warkaasi inoo haya Xasan Daahir Aweys oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa xarakada Al-Shabaab ayaa laba maalin ka hor si qarsoodi ah uga baxay magaalada Baraawe kadib markii iska hor yimaado ka dhacay magaaladaasi lagu xirxiray in ka badan oo kamid ah kooxda Al-Shabaab oo siyaasadahan ka soo horjeeday hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Cabdi Gowdane Xasan Daahir Aweys oo kamid ah xubnaha ku sugnaa Baraawe ee naftooda kala baxay magaalada Baraawe ayaa si dhuumaaleys ah ku qaatay dooni taas oo geysay xeebaha ku dhow magaalada Habyo ee gobolka Mudug afayeenka maamulka Xibiniye Maxamed Cumar Xagafay ayaa sheegay in ciidamada ka socda maamulkooda oo hogaaminaya madaxweynahooda Abdullahi Barle ay ku guuleysteen inay qabtaan Xasan Daahir Aweys isagoo bad qaba waxaana la sheegay in waqti dheer sar fadhiyeen xalay ciidamada Ximiniye Xeeb iyo ilaalada Xasan Daahir Aweys waxaana markii dambe la sheegay in dhiibeen kala socotay Xasan Daahir Aweys warar hadda soo baxay ayaa sheegay in Xasan Daahir Aweys la geeyay magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Ximiniye Xeeb hogaamiyaha hore Xisbul Islaam Xasan Daahir Aweys ay hore ugu biiray xarakada Al-Shabaab wuxuuna muddooyinkii dambe kamid ahaa xubnaha kamid ah Al-Shabaab ee dhaliisha u soo jeedinaya hogaamiyaha kooxda Al-Shabaab Xasan Daahir Aweys hore u ahaan jiray sarkaal ka tirsan ciidamadii militariga Soomaaliya kana mid ahaa ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii Itoobiya 1977 ayay hore uga soo mid noqday hogaamiyayaashii militariga xarakadii Al-Ittixaad ee ka dagaalantay qaybo badan oo kamid ah dalka Soomaaliya wuxuuna markii hore noqday gudoomiyaha golaha shuurada ee maxkamadaha Islaamiga ka hor intaan la burburin 2006 daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaa warka telefishinka madaxa banaan ee Bulsho TV oo aan caawa halkan idinka soo jeedinay anigoo Saleebaan Ibrahim Xaashiya dhammaan baa aniga iyo akhyaartii kala qayb gashay tabinta warkaasiba waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh